hoogan iyo jararkan arkaysaan waxa ku jiri jiray horjoogayaasha dhalinyarada ay khaldeen ku soo halligayay ee ka hor keenayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan kaabiga ku haynaa deegaanka ciidanku markay gudaha soo galeen sidee dal dhaqmeen waa xilli saqdhaxa badi dadku waa ay hurdaan waxaan caawa qayb ka ahay kolonyo ciidanka kumaandooska danab si gaarka u tababaran ee xoogga dalka Soomaaliyeed kolonyadoodan qayb ka noqon doonaa haddaba daawadayaal talow maxaa xiga sidee u shaqayn doonaan iyo halka ay tagi doonaan ciidanka kumaandooska danabba waxaad ka daawan doontaan halkan howlgalkan waa mid qorshaysan oo lagu burburinayo fariisimo cadowga uu leeyahay goobta loo socdo argagixisada waxay ka soo abaabulaan qaraxyada iyo weerarada shacabka ay ku dhibaateeyaan horjoogayaal ajaanib iyo Soomaali isugu jira ayaa halkaasi ku dhuumanaya guutada 16aad ee kumaandooska danab oo aad loogu carbiyay ciribtirka argagixisada oo ka damqanaya dhibaatada shacabka ay ku hayaan cadowga al-shabaab ayaa howlgalkan fulinaya intii aan la gaarin goobtii loo socday ayaa kumaandooska danab oo hayay xogta argagixisada waxay ka war heleen in qaar ka mid ah argagixisada ay ku dhuumanayaan buuro iyo godo dhaca halkii loo socday duleedkeeda halkan daawadayaal aad arkaysaan ee aanu marayna waa godadkii ay ku noolaan jireen kooxaha nabadgelyadiidka naflacaariga maleeshiyaadka al-shabaab halkani waa godad saa arkaysaan iyo jarar hoogan iyo jararkan arkaysaan waxa ku jiri jiray horjoogayaasha dhalinyarada ay khaldeen ku soo halligayay ee ka hor keenayay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama u soo dhiibayay waxay ku dhibaateeyaan dadka shacabka balse taasi waxa ka biyo diiday ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab kuwaas oo had iyo habeenba shiifka iyo u diiday inay holaan maadaama ay dhibaateeyeen oo ay dhibaato u geystaan dadka shacabka ciidanka kumaandooska u daata guryaha looga qarkood ayagoo gudad ku jiro gudadka lagala soo baxa mararka qaar ayagoo qaylaha nimanka saa u malaysiin maano nimanka saas wada jinsiyaalkaas u wada ah markay baabuurta soo xiraan bisay ummadda qarxiya qaanin maahan manna ku badan waxaa loo jahaystay dhinacii cadowga ee qorshaha howlgalku uu ahaa waxaan kaabiga ku haynaa deegaanka jilimarka insha Allah waqtiga soo aadanna waxaan idinkala soo hadli doonaa gudaha deegaanka jilimarka ciidanka kumaandooska danab ayaa dhowr jaha ka galay deegaanka jilimarka oo dhaca dhinaca xeebta ah ee gobolka Shabeellaha Hoose argagixisadii joogtay deegaankan kadib markay ka war heleen xuduudda ciidanka ku soo wajahan ee kumaandooska danab waxa ay sameeyeen inay ka sii baxsadaan taas oo muujinaysa tabardarrida kooxdan xididasiibka uu ku socdo halkani daawadayaal waa gudaha deegaanka jilimarka oo qiyaastii 18 kiiloomitir u jirta magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose daqiiqada ka hor ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa gacan ku haynta la wareegay halkaas oo ay ka sameeyeen howlgallo baaritaana deegaankan jilimarka ayaa gabaad u ahaa horjoogayaasha argagixisada waxaana ku yaalay baradadka shacabka ee waxba galabsan ay ku dhibaateyn jireen markii la qabtay deegaankan ayaa ciidanka kumaandooska danab waxay ka sameeyeen howlgallo baaritaana oo amniga lagu xaqiijinayo laguna baadi goobayo farxadka argagixisada laga itaalka roonaaday iyagoo soo dhaweyn iyo marxabeynba kala kulmay dadka shacabka ee laga dulqaaday dhibaatada argagixisada Soomaaliya ciidanku markay gudaha soo galeen sidee dal dhaqmeen sidoo kale howlgalkan ayaa lagu burburiyay fariisimaha cadowga ee dhaca dhulka xeebta ah ee gobolka Shabeellaha Hoose deegaanadaasi oo kala ah Gendershe Dhanaane iyo deegaano kale waxaana howlgalkan uu qayb ka yahay kuwa lagu ciribtirayo haraadiga argagixisada naflacaariga nabadiidka al-shabaab markan jaraa ku riday rubaadu jaray ku baadku yadii baqa jaga cadho jiqri ay galeen ka soo jiidmay ala jabaa ku dhacay ala jabaa ku dhacay qabil jabina ala jabina waligood ma way jabi rabbi jabina ala jabina waligood ma way jabi
جبي أنا جبي ولقود بوي جبي ربي جبي